waxaa la sameeyay 4 xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socdo 520 xerada xorgoble oo maalinta talaadada aan furayno waxaa lagu guuleystay degaankooda in si daahfuran loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan waxaa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii Puntland dhinaca dhaqaalaha 7 bilood 8 bilood aan joognay mushaharka aan bixinaynay cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan mushaharooyinka waxaan caddaynayaa inaan isoo taagnay waxaan ka codsanaynaa inoo ilaaliyo xasiloonida waxaan caddaynayaa inaan ishortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaano far ku tirisa inay dawladda maamulkeeda ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determine ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye su'aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kalu marayaa hadal mareed mudane hadalka madaxii kaad weydiisay waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaadan raacin mas'uuliyaddeeda adaa qaadi doona dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dawladdan ay dooratay in aan ku dhaqdo waxaan rajaynayaa shacabka Puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkan u socno waxaan leenahay mawaaqif siyaasiya waxaan leenahay mid amni xukuumadana annaga mas'uulka madaxweynaha u doorto ilaalinaya baarlamaanku waxaan rajaynayaa inay shaqadiisa aqoonsadaan waad mahadsantihiin fadhiista hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad dawladdani waa dawladdii ugu horreysay oo bixisay waxbarasho free ah oo lacag la'aan ah 65 arday yaan waxaan siinaa waxbarasho oo u badan agoon yaan siinaa waxbarasho waxaan soo celinay 24 iskuul yaan soo celinay waxaan ku soconnaa 50 iskuul yaan soo celinno sanadkan dhammaadkiisa waxaan ku gaarnay xasilooni siyaasadeed shaqaale dawladeed hal bil mushahar la'aan ma noqon askari ciidan hal bil mushahar la'aan ma noqon idinkaa ugu wacan idinkaa ka mas'uula oo ka shaqeeya xasiloonidaas haddaydan idinka ahaan lahayn xasilooni dalka kama jireen halka qof oo firimbiga haysta waa bixi karaa hadduu rabo waa hal qof caruurta Soomaaliyeed waxaan siinay waxbarasho laakiin fari kama qodna si kastaba ha ahaato weli waxaa inoo haray safar dheer yaa noo haray dawladii 3 sano iyo 10 sano meeshay rabto kuma gaarto safar dheer baa noo haray laakiin safarka idinkaa bilaabay safarka oo fursad siiyey ra'iisul wasaarahayga inuu shaqeeyo oo aan ummadeenna u shaqayno oo aan shacabkeenna u shaqayno hala kala aragti duwanaado waa caafimaad laakiin ixtiraamka waa inuu meesha ku jiro ummadda Soomaaliyeed yaad matashaan ixtiraam waa inuu meesha ku jiro walaalayaal waxaan rabaa
inaan dhowr qodobood aan ku daro halkan waa arkaya qofka firimbiga haya waqti ma hayo